magacaygu waa maxamuud cabdilaahi aadan naanaysteedu waa bariid waxaa ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera waxaana ka mid ahay xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga talada haya ee kulmiye waxaan jeclaystay maadaama oo ay ii suuro geli weyday inaan la kulmo madaxweynahayga qaaligaa inaan saxaafadda u mariyo dhaliilaha ka jira runtii lafjabka ah ee ka jira gobolka saaxil anigu aan iyo saaxiibadayba aan u aragno inay yihiin kuwo abuuraya nacayb kala qoqob iska horkeen dabarjab iyo xukuumadda iyo xukunka iyo bulshada saaxil oo la iska horkeeno runtii madaxweyne gobolka saaxil muddadii iminka loo soo magacaabay barasaabka jooga boqolkiiba 40 ayaa ka tahriibay dhallinyaradii oo ay kuwa iyagiina xitaa ku jiraan qorshe la'aan nidaam la'aan iska horkeen qoqob bulshadii oo la iska horkeenayo amnigii oo amni darro laga dhex abuuraayo iyada oo uu maamulka gobolku ku foogan yahay waxaan shaqadiisii iyo hawlihiisii ahayn tiisiina ay dayacantay way faraha ka baxday halkan oo ah gurigii guddiyada golaha deegaanka xildhibaano fara badanna fadhiyaan waxaanu iskugu nimi inaanu madaxweyne kuu soo gudbino cabashada dadweynaha ku nool gobolka saaxil oo in muddo a taagnayd ma aha in maalinba la keeno sidii muqdisho berigii hore la odhan jiray ninka tiimbeda qaba waqooyi galbeed baa la geeyaha ka soo dhigeysto halkan waxaanu madaxweyne kaa codsanaynaa horumarka waad jeceshahay gobolka waxaanu kuu sheegaynaa mala dadka faqa kuugu yimaada hadallada beenta abay kuu soo gudbiyaane kuwa runtaa kuma soo gudbiyaan message ahaan kuu soo marinaynaa saxaafadda gobolka inay ka taagan tahay dhibaatooyin fara badan waa madaxweynihii gobolka inuu kala qoqobo dad maanta uu kala diro uma joogo halkanoo uma abuurnayn inuu wax ka taro gobolka oo uu wax ka qabto xagga nabadgelyada iyo horumarka kaleba ayaad u soo egbatay kamuu qaban waxaad u soo egbatay waanu ognahay dubadhac buu gobolka ku sameeyey madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa cid ka shaqaysa horumarka gobolkan saaxil sidii hore aad ugu dhiiratay ku dhiiro u soo magacow nin horumarka gobolkan ka shaqeeya waxaanu ku soo gaarsiinaynaa waa baaq waxaanu ku leenahay madaxweyne ninkaa bara saabkii shaqadiisii way dayacantay nabadgelyo darrana gobolkii uu ka abuuraya waxaanu kugula talinaynaa arrintaa inaad hoos u eegto oo aad ummadda maanta aad ummadda baata gobolka iyo nabadgelyo darradiisiiyo iyo somaliland wixii xumaaniyada aad ka qabataa ayaa loo baahanya dhibta naga qaylisiisay waxa weeye intayadaasoo xildhibaano reer berberaa oo aan ku jiro guddoomiyaha gobolka saaxil bulshada magaalada berbera wuxuu ku hayaa dhibaato fara badan oo anaa halkan kusoo koobi karin gobolka saaxil anigu waxaan ku misaali lahaa diyaarad hawada maraysa oo bilaa duuliyaa dabadeetana gobolkii waanu heehaabaynaa oo meel aanu ku degi doonana garan mayno ila duuliye ma lihine oo duuliyihii nooga soo magacaaba wuxuu noqday inaan shaqadiisii ka soo